markaynu ku hadlayno Somaliland hal qodob horta ida xasuusiye qodob aanan hore u arag baan runtii intii aan buuga akhrinay taariikhda iyo intan dhageystay dadka taariikhda runtii yaqaana igu soo baxay dhacdooyinka in saamaynta ku leh Soomaalida meel ay degaanba ee caalamkuna ay ku qoreen Somaliland marka dib u eegto dhacdooyinkaasi intooda badan waxay ka dhaceen Somaliland dhacdooyinka Soomaalida oo dhan saamayn ku leh buugagana ku qoran ee taariikhda lagu akhriyaa marka dib u daba gasho waxaad ogaanaysaa Somaliland ka dhaceen ka soo bilow halgankii Axmed Guray ee la dagaalamayay nimankii Kristaanka ahaa Somaliland oo ka dhacay ku xigsi halgankii muxuu ahaayay ninkii odayga ahaa ee sayidka Ingiriiska kula dagaalamay wuxuu ka dhacay Somaliland ku xigsi halgankii Ingiriiska laga qaatay xorriyadda waxa ugu horeeyay qaatay waxa Somaliland ku xigsi midowgii la rabay in midoobaan Afrika Soomaaliya meesha laga bilaabay qaaday ee geysay Somaliland bay ku xigsi markii la dagaalamay xabashida la dagaalamayay deegaanka ugu weynay laga abaabulayay Suugaan iyo dad iyo cid kasta ay ugu badnaa Somaliland buu ahaa ku xigsi haddana dhinaca burburka eegno burburkii Soomaaliya deegaankii laga abaabulay ugu weynay halkan buu ka ahaa ku xigsi markii laga soo noqday deegaankii ugu horeeyay reconciliation-kii dib u heshiisiinta bilaabay ee hirgeliyay Somaliland bay ku ahayd ku xigsiyo dawlad dhisidii ugu horeysay Soomaaliya qaab dawladnimo inay u shaqeyso dib loo dhisaa waxay ka hirgashay Somaliland dhammaan taariikhaha marka dib u raacdo waxaad ogaanaysaa markasta meesha ay dhacdooyinku ay ka dhacayeen ee adduunka saameynayay inay Somaliland ahayd waxaan laakiin aan arkaa hal qodob aad moodaa wali inaanu soo dhaweyn aanu muuqan oo ah in Soomaali dib la iskugu soo celiyo meesha kaliya suurtagelin karta waa Somaliland taasna garan maayo waqti ay suurtagelayso inta qodobka marka aan kaga baxo hadaan u soo dhawaado qodobka sharciga su'aasha ugu weyn ee laga horkeena Somaliland markay ka hadlayso ictiraafka wax weeyaan waxa la yiraahdaa meeshan midow baa jiray heshiis baa jiray act of union baa jiray lagu heshiiyay Soomaaliya isku biira oo 1960 dhacay waa qodobka sharciga ugu horeeyay ee laga duulo horta waa qodobkaas waxaan maanta idin sheegaya act of union ama xeerka midowga ee lagu heshiiyay xeerkaasi inaan waxba ka jiraan ahayn sharciga marka loo eego haddaan si toos ah u bilaabo labada qole kala metelaya Soomaaliya markay wada fadhiisteen waxay ku heshiiyeen 1960 labada qolaba act of union ka labada barlamaan inay ansixiyaan barlamaanka sana iskii u ansixiyo marka la ansixiyo loo ansixiyo qaabka international looga treaties-ka loo ansixiyo oo ilaa la mariyo process-kii loo baahnaa Somaliland iyo ka daacad ah ayaa 1960kii maxay 27 June ayay ka barlamaankii Somaliland ka fadhiistay markaas wuxuu ansixiyay act of union qodobka markay sameeyeen waxa la filayay actiga ay ansixiyeen iyagu in barlamaanka kale Soomaaliya ansixiyo barlamaankii Soomaaliya wuxuu fadhiistay 1900 iyo maxay June 30 ayuu fadhiistay 30kii June buu fadhiistay waxay ansixiyeen xeer ka duwan kay Somaliland ansixisay heshiisku wuxuu ahaa actigu inuu mid noqdo soo u dhaqan galo actigii Somaliland kii laga ansixiyay mid ka duwan ay ansixiyeen markii sida ay ansixiyeen habeennimadkii markii la isku biiray 1 July habeennimadka may jirin heshiis sharci ah oo labada qol ay wada galeen muu jirin waxa la dabaal degay oo midowga la qaatay iyadoo heshiis ka dhaxaya labada qolo aanu jirin 1 July maalintii koowaad ayaa barlamaankii oo labada qoloba ka kooban dib u fadhiistay si hawshii loo dhameystiro waxa la ansixiyay dastuurku meel gaadh ah isla markiina waxa la doortay madaxweyne ku meel gaadh ah iyadoo qodobka dastuuriga waqtiga jiray oo ahaa dastuurka waxa la dooranaya madaxweynaha waxa la dooranayaa marka labada qolo ay ansixiyaan act of union iyadoo dastuurka sida ku qoran yahay ayaa iyadoo bahalkii la ansixin madaxweynaha la doortay madaxweynaha marka la doortay isla maalintii madaxweynuhu wuxuu soo saaray decreto uu leeyahay act of union kii baa shaqaynaya oo ku dhaqan gelinayo iyadoo dastuurka waqtiga la ansixiyay isla qaatin uu qorayo qodobkiisa 3 faqradii 3 ay qorayso xeer kasto madaxweynuhu ansixiyo waa in sharci gudahood barlamaanka lagu gooyaa oo xeer lagaga dhiga tiimay dhicin
agtigii xeer lagama dhigin madaxweyne digreetadiisiina iyadana xeer lagama dhigin halkaa markaa waxaa soo baxay inaanu jirin wax sharciya oo habeerata lagu heshiiyey halkaa markay marayso doodo badan baa soo baxay cabashooyin badan baa soo baxay 1961 January 18 ayaa la yiri waa in hadda la ansixiyaa Act of Union cusub mid cusub kii hore oo reer waxa soo baxay inaanu sax ahayn markaas baarlamaankii baa la fadhiisiyay baarlamaanka markii la fadhiisiyay ayaa 31 January ayuu wuxuu ansixiyay xeerka la yiraahdo Act of Union xeerkan uu ansixiyay wali waa baseless oo sharci kuma fadhiyo waayo wuxuu ka booday qodobadii koowaad ee labada qolob inay soo wada ansixiyaan oo waa xeer aan labadii qolob aan soo wada ansixin ay horta isagu ansixiyay ma number 1 number 2 qodobkiisa 10aad xeerka waxa uu ku sheegeen waxay yiraahdeen xeerkan dib baa loo celinayaa oo wuxuu ka soo bilaabayaa 1 July 1996 ka soo bilaabmaya qaacidada caalamiga ah ee xeer kasta ku qoran ee caalamka la isla ogayay waxa weeyaan xeer dib loo maceliyo xeer dib u noqon kara ma jiro xaaladaha criminal case ka meel qaar laga soo reebaa laakiin si xeer dib loo maceliyo iyadoo mabda caalamiga sidaa yahay ayaa la ansixiyay xeer ah in dib loo celiyo halka waxa kaaga soo baxaya inuu xeerka saxum ka jiraan ahayn waxa kale ku raacaya siday saxda ah heshiiska wuxuu ahaa labada dawladood labada cid ay kala matalaysaa inay Act of Union ay ku saxaan markii heshiis laga hadlayo lama haya ilaa hadda laba qof oo ka kala socda Soomaaliya oo Act of Union ku saxan oo la ansixiyay marka dhammaan processkii uu lahaa xeer lagu ansixiyo lagu heshiin karo UNT lama geenin processkii UNT lagu geeyay xeerarka caalamiga treaty-ga noqon lahaa lama gelin sidaas markaa horta waxaan oran karnaa xeerka koowaad ee ku aasaasan tahay in Soomaaliya ina mid noqdaan sharciyadiisa horta halkaas fadhida haddii aqdi ama heshiis uu buro oo sharci ku fadhiin macnaheedu waxa weeye cid kasta waa ka bixi kartaa waxa kaliya isku hayay Soomaaliya waxa isku hayay waa nidaamkii meesha waa ka baxay marka halkaan marayno hal qodobkaas waxaan ku cadeynaa qodobkii koowaad oo ah xaqiiqada koowaad inay tahay midow saxa oo sharci ku dhisan oo dhex maray Soomaaliya inaanu jirin dooda ugu badan dadka laga yaabo inay diideen Somaliland laga yaabo inay kana wax weeyaan Somaliland dawladba may noqon in 1960 iyadoo shan cisho jirta ay nagu soo biirtay marka dawladnimo may noqon waa dood runtii aad u adag ay keenaan taas ma raba horta bilowna naftiimiyo waxa la yiraahdaa qofka marka laga sheekeynayo sharciga waxa la yiraahdaa cadaynta ugu weyn ee qofku keeni kara wax weeyaan qoraal isagu uu leeyahay oo qiranayo haddii qofku qoraal keeno official oo uu leeyahay waxa ana yiri meel loo noqdaa ma jirto waxaan soo qaadanaynaa documentiga Act of Union oo iyagu ay ansixiyeen xaqooda koonfurta laga ansixiyay ama baarlamaankii waqtiga jiray marka iyaga banding bu ku yahay iyaga ku waajibina raacaan actigaas muxuu qorayaa actiga marka akhrido qodobkiisa afaraad wuxuu leeyahay Somaliland iyo Soomaaliya heshiisyadii ay waa koonfurta Soomaaliya iyo waqooyiga Somaliland labada dawladood kelmadda dawladda cabiraya labada dawladood heshiisyadii ay galeen ka hor intaan la midoobin way shaqaynaya qodobkaasi wuxuu qirayaa inay dawlad ahaayeen labaduba oo heshiis gal jireen waliba wuxuu sii sheegayaa heshiisyada internationalka ay galeenna qodobka waxa loo raacayaa 65 ee dastuurka oo isagu sheegayaan baarlamaanka wana si ansixinayo لذا قدر كان سعد وحوش يجيا إني لبدو هشيس جالي كرا أيهين سيد سعادة كده واتشينا مونتفيديو كونفنشن وحكوا قران شروطها الدولة لقوا اعترافه إني دولة هشيس جالي كرتو ما كقول بكوادة قيران بوحها سومال إني هشيس جالي شرتي وحركة كقران قدر كان صدحان ما هكوش يجان وحكوا شيئا إلى هذا النظام كا حق جرسورك إيه شرعية لبض قلبه وحي راعي شرعي ودجسنا يجا قدر كان ما هيكون حقيقيين إني الصومال شرع لهيد نظام لهيد جرسور سيسة وشقي لها أي لهين ويقول بالله يسيبوا سشقينيه قدر كشراب ما هيكون شيئا وحلا يابله كل شيئا وهيكون شيئا وهنقف كصاب مواطن كأه لبض الدولة دود صومال كي مواطن كأها يكي صومالي مواطن كأهبا لبضوا مواطنين بسيهانية ما هي قرن لبض مواطنين يجيران مواطن صومالي يمس صوماليا
iyaga ma ka qirin laba dawladood citizen kala duwan yahayna inuu yahay qodobka lixaad maxaa ku sheegeen waxana labada qolo kasta ciidankii ay lahayd ee gaarka u ahaa iyo ciidankii koonfurtu gaar u lahayd waa la isku darayo waxay noqonayaan ciidan qaran bay noqonayaan waxay qireen labadaba ciidan u gaaran lahaayeen isla qodobka waxay ku soo qireen qolo kasta booliskay lahaayeen sida buu si shaqeynaya booliska Soomaaliya ayuu ku wada biiraya marka qodobkaas wuxuu cadeynaya boolis gaar iyo ciidan gaar oo dawlad lagu yaqaano in la kala lahaa Soomaaliland gaar u lahayd qodobka toddobaad wuxuu sheegayaa miisaaniyada gaar in la kala leeyahay miisaaniyadii gaarka oo Soomaaliland ayaa waxa leeyahay sideeda u shaqeynaysa ilaa inta maxay laga gaaray ma waqtiga la marka qodobkan waxa waa dawlad miisaaniyad leh qodobka 9aad maxay ku sii sheegeen qodobka 8aad waxay ku sii sheegeen cashuuraha laba dawlad ay qaadaan ee ay ka qaadaan dadka kale dibadaha foranka qolo kasta sideedaba cashuurta ugu shaqeynaysa marka sida uu akhrido xeerka iyagoo ay ansixiyeen ee waajibka ku ah ee bandhiga ku ah wuxuu cadeynayaa laba dawlado oo kala madax bannaan oo system dawlad luqi inay kala lahaayeen bal haddaad si akhrido qodobka 3aad wuxuu sheegayaa dawladii jirtay hay'adihii dawladda jiray Soomaaliland ka jiray dawladii centralka ahayd iyo tii localka ahaydba inay sidoodu u shaqeynayaan marka qodobkaasi waxaan isleeyahay waa daliilka ugu adag ee cadeynaya qofka soo ku dooda inaan Soomaaliland dawlad ahaan u jirin xeerkii iyagu ansixiyeen ee baarlamaankooda ansixiyay ay ku sheegayaan qodobkan soo daadago qodobka horena marka laga hadlayo international lawga اعترافك تيسو دود باك تاغان قال واحد ترى واحد اعترافك الله يرحضا waa declaration wuxuu cadeeyaa dawlad hore u jirtay ayuu kor soo qaado cadeeyaa qolna waxa yiraahdaan ma isaga aasaaska dawladda dhinaca kale waxa yiraahdaan اعترافka saxda iyo ka gudaha ka jira localkaaga gudahaaga ka jira ayaa اعترافkaas rasmiga ah ka gudaha aanu waxaan adkeenayaa si loo helo international gudaha sare اعتراف caalami loo helo aanu qodobadan ku doodo waxa kamid ah Soomaaliland hadii rabto اعتراف horta gudaheeda si sax ah اعتراف u sameeyso اعترافka gudaha afar shay asal ah muwaadiniintu inay u sanaadaan fursadaha dhaqaale muwaadiniintu inay u sanaadaan xuquuqda iyo waajibaadka muwaadiniintu inay u sanaadaan adeega bulshada in loo sanaado matalaad waa afarta mabda ee gudaha laga dhisay dawladdu ay tahay inay dhistaa waa afarta hadii la dhiso adeegii bulshada loo sinaado oo fursadihii shaqo dhaqaale loo sinaado oo loo sinaado Allah wasala xuquuqdii aasaasigeeda qof la iska xirmo muwaadiniinta isma yihiin mataladana loo siman yahay Soomaaliland caalamka dhan waxay ka iibin kartaa wax sax laakiin gudahaagii hadii wax ka jiraan oo waxa soo dhaqal ka jiro oo sinaan aan jirin oo fursadihii aan loo sinayn oo xuquuqdii aasaasiga loo sinayn oo mataladii dad gaar ay joogaan inaad tira Soomaaliland ban iibinaya caalamkan geenaya su'aalo badan baa ka hor imanay marka waxaan ku soo koobayaa اعترافك gudaha in laga hagaajiyo ayaa asal u ah in dibadda laga helo sida public relation ka caadiga ma kala sameeynayo institutions oo dhan public relation ma kala sameeynayo gudaha laga bilaabo system kaaga la hagaajiya documentation ka la hagaajiya qofka marka ku imanay xiriir kula sameeynaya waxaaga markuu arko waxba iska bedelay laakiin gudaha hadaanad isnayn caalamka ma iibgeyn kartid marka anu waxaan adkeenayaa gudaha runtii in la dhiso ku soo xidhi lahaa marka taariikhda Soomaaliland yara eegto runtii qodobaan filayn baan iga soo baxay arintan ah in goonisitaaga ama arintan ah in koonfurta laga hado hadda may bilaaban maalintii la ansixiyay act of union ee dawladda dhisay bilaabantay xoolahan aad ka walaayay kamid waayo markii dastuurka la ansixinay 1961 waa sanad kadib ansixintiisii markii la qaaday muxuu ahaay la qaaday aftidii sida hadda inoo sheegay maxaa wasiirkuna majority Soomaaliland waa badiiday marka halka markiiba waxa ka soo baxay dadkiina ku qancin haddana muddo kooban 1963 watii maxkamadii loo saaray nimankii sameeyay inqilaabka maxkamadda la soo taagay yani muddo kooban baxday in inqilaab la sameeyay maxkamadda xukunka soo saartay base maxaa uga dhigtay ninkii Ingiriiska ka garnaqay wuxuu yiri act of union aan saxsan baaban jirin oo u dhaxaysa Soomaaliya Soomaaliya iyadana dood kale noqotayba sidoo kale socotay marka waxa dareemaysaa arintan dadku waxay rabaan inay soo bilaamato horta waqti hore oo hadda ahayn
laakiin hal qodob oo taariikhda marka akhrido ku soo baxaya jira siyaasiyiinta Soomaaliya kuwa Soomaaliya kala duwan siyaasiyiinta Soomaaliland ka jira hadda akhrido buug qoray Koongana waad ku arki doontaa inta badan waxay qaataan shacabku waxay rabaan shacabka hogaamiya shaarica Hargeysa ee madaxweynaha hogaaminaya go'aamo la yaab leh ayaa la qaataa iyada oo siyaasi aan ku qanacsanayn hadda dib u eegto imika in lagu biro Soomaaliya siyaasiyiinta waqtiga jooga ciyaal wax koran maanan ogolayn dadka jooga baan 6 bilood waynaga diideen dadka watay birigii markii 91kii la go'ayna siyaasiyiinta marka hada warsaha koranayaan anagu wax harbayn la si Soomaaliya lagu biirabe dadkii baa diiday marka waxaad ogaanaysaa markasta cidda wax hogaaminaysa horta waa dadka halkii koonfurtu ka duwanto siyaasiyiinta hogaamiyaan haddaba hal qolaba marka dhinac ka eegto inay ummaddu wax hogaamisay way fiicantahay laakiin ummaddu waa inay wacyigood marka aad u sareeyaa hadda wacyiga ummaddu aanu sareynin waxa laga yaabaa inay siyaasiyiinta ku hogaamiyaan meel qaldan waana tan u baahnaan ka howlgallo ictiraafinu raadinayno wacyiga dadka la siinay wax loo sheegayo haddii dadka laga dhaadhiciyo inkastoo koonfur jooga cadow ku yahay oo shacabku waa koo cadow doon sax uma arko siyaasad baa la isku hayaa masaalix baa la isku hayaa ninka siyaasiga la is hayaa masaalixda Soomaaliland dariiqeeda hoo marto laakiin shacab oo meel kala jooga in looga dhigo cadow koowadina isugu yahay falsafadaas inay sax tahay ma arko marka wacyiga bulshada in kor loo qaado si iyaguna hadhow go'aamada siyaasiyiinta ay ku saameynayaan sax u noqdaan muhiim baan u arkaa waxaan kala arkay siyaasiyiinta Soomaaliland inay fishan yeeshaan iyagu haddaan fishan sax lahayn kolba waxay raacayaan Soomaaliland xagga shaaricu u socdo iyo bulshada halka u socdo iska raacayaan waxaan u baahanahay siyaasiyiinta Soomaaliya iyagu fishan kooda dadku hogaamiyaan marka runtii intaas baan ku darayaa. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.